energy drink waa okay hadaratin qamr u qaat because ani waalidkay already way ogina balwad leen qof nadiif oo la ogyahay marka idinka maxaa aniga qanciskiina ay tare qamriya cabay maxaa qaadaysiin shada faka idabta idin kalunta maalmihii ugu dambeysay baraha bulshada ay ku kulanto waxaa si weyn loogu hadalhayay Rayaan Bajaaj iyo sidoo kale ninka ay guursatay haddaba guurkooda kadib waxa lagu arkayay baraha bulshada waxaan Rayaan Bajaaj looga baranin oo gabi ahaanba dadkii daawaday muuqaaladaasi ay u maleynayeen qamri maandooriye iyo sidoo kale waxyaabaha dabcan dadka daraagiska ay isticmaalaan طبعا وحياabo lala yaabo baraha bulshadu ay ku kulanto sida ay wax ugu jireen inkastoo ugu dambeyntii afka ay furatay qaylo kana hadashay arrinka baraha bulshada ku jira sidoo kale saaxiibayaal Rayaan Bajaaj muuqaaladeedu waxay ahaayeen gabi ahaanba kuwo si weyn loogu dhaleecaynayay guurka ninka cadaanka ay guursatay waxaanu doonaynaa labada qodob ee ah ninka ay guursatay oo ajaaniba iyo sidoo kale ninkeedii hore طبعا oo isku qaadi doono iyo sidoo kale qamriga oo gabi ahaanba sheegtay inaan haba yaratay waxba ka jirin waxyaabaha baraha bulshadu ay ku kulanto sida weyn la soo dhaxmaraya balse inteena barnaamijkeena gudagalin waxaan idinka codsanayaa saaxiibayaal inaad kanalka subscribe gareysaan isla markaasina gambalaalka furataan oo ka mid noqotaan kumanaan iyo kumanaanka kun ee daawadayaasha ah ee mar walba xogaha xaggan aan ku soo gudbino hela mahadsanid baraha bulshadu ay ku kulanto mar walba waxa ka cusub waxyaabee haddaba tanna waa dhacdo kale oo dabcan cusub inkastoo maalmihii ugu dambeysay hadalhayn aad u fara badan ay baraha bulshada ay ku kulanto ka dhalisay Rayaan Bajaaj ayaa maalmihii ugu dambeysay aad looga hadlayay waxaana hadalkeeda ahaa inay aad u cabaysay maandooriye qamri iyo sidoo kale waxyaabaha dabcan daraagiska hase ahaatee gabi ahaanba waxay sheegtay inay ceebka salin ka tahay xagga familigeeda iyo sidoo kale asxaabteeda balse dadka aanay gabi ahaantoodba qancin karin waa sida ay hadalka u dhigtay haddaba dad badan ayaa ku sheegay inay qamri cabtay maandooriye dabcan maankeeda iyo maskaxdeeda dabcan dilaya arrinkaasna ay u cabtay wiilkii Cabbaas lagu magacaabi jiray ee isqabeen hase ahaatee gabi ahaanba isagu sheegay inaan nolosha Rayaan Bajaaj isku garanin sida laajigeedna oo warqadi siiyay ugu dambeyntii iyaduna waxay ka baxday halkan oo waxay cadho guursatay ninka dabcan halkan idinka muuqda ee ah ninka ajaanibka ma garanayo wadan ahaan halku ka soo jeedo hase ahaatee iyadu waxa ay sheegtay dabcan inuu muslim yahay balse dadku gabi ahaanba waxay sheegayaan inuu ninkani ajaanib yahay muuqaalo badan oo imaadaysi ka dhiganayso ay soo gelisay aaladda TikTok waxaana ay ku sheegtay dabcan su'aalaha la weydiinayay inaan haba yaraatee dabcan ninkan la xalaalay iyadoo imaadaysi ka dhiganayso balse iyadoo ay ka jari doonto buriyada sidoo kale saaxiibayaal waraysi ay siisay Dirsla Cabdi ayay intaasna ka dhex tiri balse gabi ahaanba dadku waxay u qaateen inuu ninkani yahay nin aan muslim ba ahayn balse ku dambaabi mayno oo inagu oran mayno waa gaal iyo waa muslim hase ahaatee shakhsiga uu yahay ayuun baynu wax ka oran doonaa horta marka koobaad aynu nidhaahno Soomaali iyadu weeyaan hase ahaatee waxay halkan carartaba ugu dambeyn waxay soo qabsatay ninkan ajaanibka ah aad ka arkaysan halkan aan Soomaali meel la ka soo gelin xataa haddii gabadh Soomaali dhashay inuu waxba ahaan lahaa Rayaan Bajaaj sida ay sheegtay dabcan fiidiyoyo hore aan ka hayay oo ka daawaday waxay sheegtay haddii Cabbaas kala tagaan inay guursan doonto wiil ajaaniba hase ahaatee gabi ahaanba waxay kaga dhabaysay arrinkaas oo waxay guursatay ninkan ajaanibka sidaad arkaysaanna waxay kuba jiiftaa laabtiisa oo waxay dabcan la soo duubtaa everything muuqaalo hase ahaatee waxay sheegtay Cabbaas inaanay waqti xaadirkan isku noqod iyo in dub isugu sii midoobaan aysan meesha oolinba maadaama uu Cabbaas saddexdaba ku dhawaaqay wax meesha yaala aysan jirin haddaba dabcan dadku waxay leeyihiin maxaad haddii aad Cabbaas isku dhacdeen aad wiil Soomaali oo kale u raadsan weyday hase ahaatee iyadu gabi ahaanba waxaas way ka biyadiiday oo waxay sheegtay inay Soomaalidu isku wada mid yihiin oo dhammaantood bay yihiin dad aad u wada xun oo mid quriya tahay ahayn mid wanaagsan aan way si kasto tahay waxay sheegtay inay ubad ka dhaxeeyo Cabbaasna uu yahay qofka quriyata ee ugu wanaagsan noloshiisa qof soo mara nolosheeda qof soo mara hase ahaatee calafku uu halkaas kala dhigay ugu dambeyntii dabcan Rayaan Bajaaj waxay sheegtay oo kale inaan haba yaraatee dabcan waxyaabaha social media ku jira waxba ka jirin qamro iyo sidoo kale maandooriyaashaba haddaba muuqaal ay cadho aad uga muuqato ay soo duubtay kana hadlayso arrinkan waxaan doonayaa muuqaalka inaan idin shido oo idin daawatiyo saad u aragtaan xogta iyo xaqiiqadu sida ay wax u jiraan balse mar kale aan xasuusiyo saaxiibayaal inaad fiidiyoga like gareysaan si muuqaalkan u gaaro saaxiibo adigoo kale oo wanaagsan dabcan saaxiibo adigoo kale wanaagsan aan u helo kaliya waxaan ka codsanaynaa hal midun inaad fiidiyogan like gareyso mar leeba muuqaalka waa daawanaysaa
ka xaasidnimo maaha baa laga yaabaa hase haatee waa kaa iloosho marka keliya muuqaalka yar like iska siiya waxa laaliya wuxuu kaa dhibaya ma jirto drink waa okay haddaa rabtiin qamri u qaata because ani waalidkay already way ogiinaa balwad lahayn qof nadiifa oo la ogyaha ah marka idinka maxaa aniga qanciskiina ii tare qamriya cabay maxaa qaadaysiin shut the fuck up waynu ognahay oo baraha bulshada ay ku kulanto maalinba waxbaa ka cusub oo marba waxbaa lagu hadalhayaa hadalhayntaasina wuxuunbay noqotaa maalinba qof ayay waxa ka sheegaan dadka balaagfoonada social mediaha isticmaala hase haatee saaxiibayaal tani waa qisadii ugu dambeysay maalmihii ugu dambeysayna lagu hadalhayay baraha bulshadu aalada tiktok remember waxaa la idhaa iyo sidoo kale youtube waxaa la idhaahdaba Ryan Bajaj ayaa sidan tiraa hase haatee ugu dambeyn gebi ahaanba waxay furatay afka waxaanay ka hadashay inaan haba yaraatee waxba ka jirin waxyaabahan social mediaha la isla dhex marayo gebi ahaanna ay yihiin dabcan wax ku tirkuteen propaganda iyo been abuur cadaana oo laga sameysanayo iyada anyway si kastoo ay tahay saaxiibayaal hadalhaynta baraha bulshadu maalinba waxba ku cusube tanina waa dhacdada Ryan Bajaj iyo sidoo kale Abbas iyo ninka kale ajaanibka ah ee baraha bulshadu ay ku kulanto lagu hadalhayo hadalhaynta baraha bulshaduna marba waxba ka cusub sida aynu sheegnay Ryan Bajaj dabcan sidaad ka arkaysaan waa gabadh shaqaysata oo sidana dabcan xog ku hayo meherada iyo ganacsiyeeska lahayd iskana shaqaysanaysay nin iyo ubadna iska haysatay iyo reerkeedaba social mediahana wuxuu iska soo gelgelin jirtay maalinba waxay doonto oo ay soo hesho niyadeeda ku soo go'a ay soo gelinaysay YouTube-keeda iyo platformada kale ay isticmaashaba hase haatee ugu dambeyntii calafka ayaa dabcan ka adeegay oo halkaasi dhigay inay nin cadaan laabta kaga jiibsato isaguna oo halkaasi ka baxo wiilka qabay inkastoo ay laba ubada haysato ilaa waqti xaadirka Nairobi ayay ku sugan tahay sidoo kale saaxiibayaal arrimaha baraha bulshada ay ku kulanto ku jira marba waxba ka cusub dabcan Abbas ilaa haatan waxba lagama hayo wara cid ka hadashay barnaamijkiisa programkiisa iyo sidoo kale halka uu ku dambeeyay hase haatee arrimaha baraha bulshada ku jira waxa kowkow ah in la sheegay inuu la guursaday kadibna ama dabcan gabadh kale ku dul samaystay gabi ahaanba iyaduna ay noloshiisa sidaasi kaga tanaasushay maxaa yeelay waxay tiri anigoo noloshaydu maanta u daayar hadii uu baday sidaas sameeyay de markan weynaadana wax uu soo wadaaba iskaba yarba si kastoo ay tahay saaxiibayaal ugu dambeyn xogta muhiimka dabcan soo dhameystiray waxaan rajeynayaa in halkan idinku siiyay waad ku maasantihiin saaxiibadii hore nolol joogay iyo saaxiibada cusub saaxiibadii hore nolol joogay maasin saaxiibada cusubna waxaan leenahay soo dhawaada oo kamid noqdo kumanaan iyo kumanaanka kun ee daawadayaasha ah ee mar walba xogaha iyo sidoo kale muuqaalada xaggan aan ku soo baahino ka hela mar walba waxaan isku daynaa xaqiiqo xog muhiima iyo sidoo kale barnaamij xiiso leh inaan xaggan ku soo gudbino mar walba waxaan isku day doonaa saasi ay noo ahaan doontaa inaan barnaamijyada ku soo gudbino ay noqon doonaan kuwa mar walba xaqiiqada ku saleysan tanna waxay ahayd qisada iyo sidoo kale dhacdadii Ryan Bajaj ee baraha bulshada ay ku kulanto lagu hadalhayay maalmihii ugu dambeysay